waxaa kaaga sii daray raggan suldaankoodii dhanac intaa la qabtay dhalfa lala dhacay aa weliba dhiidhiin loogu daray yaa waa qofka dilay waa nima dhibaane maanta wuxuu ku yahay afayeen kaagama qaadan afhayeennimada inuu ma dhibaan yahay wuxuu kaaga qaatay codka dadka ugu badan jamhuuriyadda somaliland wallaahi bilaahi tallaahi magaca somaliland waraa ictiraafay heli lahayn waxay heli lahayn nabad waarta waxay heli lahayn laakiin adaa gundaha ugu dhegan siilaanyaa la keenay dalka wuu kuu fufuray wuxuu gaarsiiyey ii sheeg shacbiyad badan dimuqraadiyadu kusii waxaa yimid ninka la yiraahdo muxuu ahay ii sheeg muuse muuse istaraatiijiyadu kuu diyaariyey markaasaa caruurtaadii adig aa ka dhalateen sida ii sheeg tera odaygii ugu weynaayo qorano ahay midgaan ku dhalay oldoone xabsi siyaasiyiinta ahaydin xabsiyaa lala dhacay wariyaha qofka kula hadlaya mataqaanaa midgaan iyo waxa ku tilmaamayso ii sheeg waxyaabaha qaar waa ninka keliya ee soomaali magaca soomaali iyo afka soomaaliga dadka ku hadlay yiri taa diyaarad mig 17 loo dhiibay siyaasigaaga kugu weynaana wuxuu ahay kobatolo wuxuu ahay morgan waxaa la yidhi abti waxaad duqaysaa isaaq weliba waxaad duqaysaa foto jilicda adig aa ka dhalato garxajisa duqeeyaa la yidhi markaasuu wuxuu dhaha wallaahi bilahi tallaahi wuxuu ka degtay djibouti international airport markaasuu dhahay maatadu dhashay ee garxajisa wallaahi bilahi tallaahi ma duqeynaya laakiin dalkaaga difaac ma diidayo waryaa maanta ninkaas 2021 wuxuu degan yahay xaafadda kasoo horjeedo jamaaca weyn xaafadda dhahan dhul waxaa siisay 70 bishii guriga uu degan yahay waxaa ku baxdo lacag ku dhow $75,000 xitaa wuxuu dejiyey qoyskiisa intuu meesha keenay oo iska dhuuqaa lacagta adiga aad leedahay waxaa kaa dhashtay midka xunoo bidaarta weyn oo siyaasadda aanan fahamsanin wax uu kala og yahay aysan jirin intuu meel soo istaago wuxuu yiri sanadka dan farmaajoa soo laabanayo andan wuxuu rabay inuu la kulmo xaashiq maxamed markaasaa waxaa la yidhi waryaa han melihid siyaasi ma tihid abti haddaa siyaasi tahay qofka markaas aad la shaqayso si wanaagsan ugula shaqeey laakiin siyaasadaha qaarka ay waxyaabaha sumcadda kaa dilayo meelha la soo istaaga haddaa inaa la kulanta aridno waa inaa raargelin aa bixisaa markaasuu yiri soomaaliya raalnaqada in waa ku fududaad qof noocaasa kale siyaasad waxaa ka taamalan dadnimo waxaa ka taamalan intaa soo fariisataan iska khayrkaa dadka adiga kula dhashtay awar awal tagtay habar jecla tagtay adigu booskaan maxaa ku dhigay waxaa taa dhagax iska soo taagan waryaa 19kii hadeertaan ahayd waxaa kumaad xun kuu geystay ciidankan liverpoolis 77 qof aa laga dilay 21 ka mida waxay ahaayeen caruur khayr waxyaabaha qofka bilaadanka dhiiggiisa kiciyo ninka ragga haddii lagaa dilo waxa waaye nin kalena usoo aarto awaa iska soorto waa leedahay laakiin haddii laga laayo maxasta iyo caruurta iyo dadka keliya aa ku tashato xitaa layskama dilo biniaadnimada wallahi layskama dilo markaasaa intaa imaadaya qaad la fariisatay aa ku jirtaa wax aad tahay malahan fiiri magaaladan hargeysa lahaa 1995 qabiilka ugu badan 95% ninka degaadu ah haddana waa lagugu dul imid waraa xitaa rag kasoo guuray maraykan iyo canada maanta waxay ku leeyihiin 75% annaga iskale adu xaggee jirtaa maxaa tahay dalna kuma ficnid dibadna kuma ficnid fiiri meeshaan aan joogo wallaahi bilaahi tallaahi sumcad xumada isaaq soo gaarto wallaahi bilaahi tallaahi garxajsa soo gaarsiiy qaldaan magacaas waxaa loo bixiyey qof garxajisa markaanland wallaahi bilaahi tallaahi isaaq kale aan loo bixin dadka kale oo somaliland degan oo sharafta le aan loo bixin magacaasoo dhan waxaa usoo jiida waa adig iidoor yaa keena waa adiga dabacayuun yaa keena doqon yahay doqontu dhashay garxajis boogta ku taala isaaq ayaga waa war waxaa la joogay ii sheeg 1990 ka hor dadka xornimoy u dagaalayeen waxay u dagaalayeen istiraatiijiyad dagaal hal ninaa ka dhashta oo cabdiraxmaan tuur laha marka dambana kaneeco u dhintay siyaasiga kaneeco u dhintay kaneeco alla iyada ku yaal waana madaxweyne qaran oo dal soo maray dadka kaa dhashay oo dhan maxamed siyaad bare waxay ahaayeen kabatole ragga ilmaadeeradana waa rag la yaqaano taariikhda meel ugu qoran waa la soo baxay dalka waa laga soo tegay baanhoofka meel walba istaagtay reelweyada waxa taagan
oo magaca isaaq ciidii wallahi wax kale ma waa garxajis. Garxajis waa boogta keliya ee maanta ku jirta isaaq. dadnimo ma lahan, deegaan ma lahan. War fiiri burco boqolkiiba boqol ayaga la nin gabiley ka yimid iyo nin meesha ugu dambeyso dhoqosha iyo meelahaas ka yimid yaa kaa qabsaday. maxaa tahay maxaa ku toorataa berbere maanta ragay leedahay, wajaal ragay leedahay, gabiley ragay leedahay, safka u tubanaya magaaladaada intaa lagugu imaado aa weliba xitaa fiiri 21 years waa markii ugu horreysay aa magaca ka maqan سميرو qof caqliyadda kula war socda muudgal ducaalo sugaad ka dhegeysaa muudgal siita muudgal muudgal caqliyadda ilaahay حاول kaa كسو qaaday قاتو wallahi soomaalida hadda isaaq magaca isaaq waa ceebaysay magaca isaaq waa ceebaysay qof waliba hadda wuxuu ka aaminsan yahay dad qaldan dad iska marqaansan ee jiifo abti haddaad dadka magaca wadaagtaan waa loo daaya waxaa la yidhahdaa anagoo garxajiisa marqaanland annaga hana la yidhahdo laakiin boqolkiiba 90 waxa somaliland lagu caayo iyo dib u dhigista badan waxa u keenaya waxa waaye waa garxajis fool xumo fiiri waxa la yidhahdo kuul caraa ku jiro kuul cara xagee ka yimaada ninkan la yidhaahdo gaboose dhakhtarka ah 1995kii reerkiisu waxay degnaayeen mudug adeerkiis aabihiis wuxuu sheegtaa nimo ma dhibaan oo la yaqaan isagina waxa waaye ii sheeg waa boonta habar yulis wariyaa meel walbaa laydinku sheegay gabay ha ahaato suugaan ha ahaato maahmaaya ha ahaato wax weliba oo isaaq ku dhaca wallahi billahi tallahi boqolkiiba 90 idinka okay qofkaa la hadlaysa fiiri waa abgal wallahi billahi muduloodaan kuusoo qaato iyo meelaha dhaadheerka aan kuusoo qaato waa yaabi doontaa laakiin abgal anoo ah at this time wallahi inaan wax kale kaala hadlin jamhuuriyadda federaalka soomaaliya magaca keliya oo maanta farmaajo uu fadhiyo nin kaleeto habar gadir uu fadhiyo anu maxaan ka ah fiiri ninka ii saaro waa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya bistooladii ka dhacda xataa hargeysa ninka dartiisa ee u dhacayso waa isaga taliyaha nabad sugidda qaranka soomaaliyeed yaa ah waa nin afgaal wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya aniga not like meelaha ku yuusan tahay waa aniga awood ilaahay indeg anuu isiiye wax weliba anaa isku haa waxaa fiirisaa 2002 alifkii waxay mideen abgaal wuu ka degay 8kii waxay mideen abgaal wuu ka degay waa labadii mar ee siyaasiyiintaada somaliland kor loo qaaday marna tarkiya lagu belamiyey waxaa la somaliland xaggee u socotaa mashaariic badanaa idin ogolna mashaariicdii la siiyey wax kale looma siin ee waxaa loo siiyey jacaylka awoowayaasha loo qabay laakiin awoowayaasha xilligay joogeen ma aysan jirin qaadkan iyo isha calanka meelaha lala fariisana fiiri habar yuunisay ugu durgeen dagaladoodii xilligii waa dad raga oo qaad aan cunin calaq aan aqaan qamri aan aqaan askubistiyaaleen laakiin suldaankaagii markii la dilay kabacdi wajaala lagu furay boqor xili salaasi wuu ku qiilay hargeysa lagu daaday boqolkiiba 80 hargeysa lagu daaday wariyaha 2015kii wadankan la yidhaahdo Belgium Brussels yaa kugu soo dhaweeyey siyaasiyiintaada qaar uu ka mid yahay odayga dhurwaayga oo madaxa xullo ninka dilo qooqahay waraa 75 years oo jira weli qooqahay gabar waxa ay sheeg gorgoradeedu ka daba laalaada yaa la arkay isagoo Sheekh Shariif isku sawir dad noocaas ah gataa niyo Samiro may maqashaa waxaan eygu dhalay nijaasta umbani waxa ay soo qabtaa odayga baryaha mudigal 20 in badan baa ku socotay ay soo qabo hay wax mudigal gogoos lahayn ma jiro gogoos ma waa meegi saasu meeg ku yahay أدون mudigal كاغو كدلا موت قلي maxaa meega ani maa 3 daqiiqo hadlay موت قلي هذا البا هو يدا أقول له كتاب واحد دمر الشيء